guddiga bilic soo celinta iyo hantida dowladda ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay maanta burburiyeen dhismayaal ganacsi kuwaas oo soo galay dhabbada weyn ee magaalada Boosaaso. Dhismayaashan la burburiyay ayaa waxa ay ku jireen wadada kuwaas oo horey loo calaamadiyay, waxaana goobjoog ahaa goobta gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamed Xirsi ahna wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda Puntland. Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland waxa uu sheegay in guryahan horey digniin loo siiyay maantana ay biloobeen burburintooda. maanta waxaanu bilownay in aanu deyrarka iyo guryaha ku soo jira wadada oo horey aanu digniinta u siinay in maanta aanu ka dumino insha Allah taala. waxa weeye wadada bilic soo celinteedii horeyba u sii socotaa oo horey bay jirtaa inta laamiga u dhow oo ilaa beerka ku soo jirana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaanu saa u sii wadno. cid allaale cidii horey digniin loo siiyana waxaan leenahay inta aan leeni soo gaarin wixii idinka yaala kasii furfurta. gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Waceys Dhado oo xubin ka guddiga bilic soo celinta iyo hantida dowladda ee Boosaaso waxa uu sheegay in dhaqaale loo aruurinayo wadada weyn ee Boosaaso isla markaana dhismaheeda la bilaabayo. waxa qorshayagu yahay oo aan dhaqaalena u ururin doonaa hadii la yiraahdo kana hawlgalaynaa ilaa maxaa bisha Ramadaan ka horba inta ka horeysa wixii baanu salaxaynaa. Ramadaan wixii ka dambeeyana waxaanu galaynaa in dhismihii uu ku bilowdo laamiga. waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhado fariin u diray ganacsatada kaalimaha shidaalka ku leh dhabbada weyn ee Boosaaso, waxaana uu ku ballamiyay maalinta biri ah in ay yimaadaan xarunta gobolka ee Boosaaso. kaalimaha shidaalka waxaan ku wargelinaynaa biri 4 saac inay gobolka yimaadaan. cid kasta oo kaalin shidaal leh oo magaalada Boosaaso laamiga inta laamiga degan waxaan ku wargelinaynaa 4 saac inay yimaadaan xarunta gobolka oo guddigu ka sugayo. guddigan ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ee magaalada Boosaaso ka wadeen burburinta goobaha soo galay wadada weyn ee magaalada Boosaaso. Xamse Cabdirashiid SBC Boosaaso.